Yeah. Yeah. Somalia, United Somalia, United Somalia, United Somalia, United Somalia. وصباحية ديار قرابة وصباحية. السلام عليكم دمانتين magacayga qadan baa leedahaa community-ga Soomaaliland ka tirsan ee Washington DC ku nool baan ahay waxaan maanta waa maalin aad farxad u ah Soomaaliland aad iyo aad baan u faraxsanahay madaxweynahaygii wuxuu ka hadlayaa heritage building we're so happy walaaladayda halkaa taagtaagan ee calanka buluugaasta waxaan leenahay walaalaynu nahay cadaawada iska daaya waxba isma yeelayno laba dal hadday kala noqono way iscaawinaynaa sida Maraykanka iyo Ingiriisku waa walaalo way iscaawiyaan awooddu isku caawiyaan 30 sano annaguna bilaa ixtiraaf ahayn idna 30 sano dhibaatay dagaal ku jirteen awayaan marka maxaan ka faa'iideynaa weligeeba Soomaaliland way sitaay ma jirto iyo kala qaysan mayso let's come together we can be xoog iyo awood isku biirin karnaa walaalada cadaawada iska daaya oo respect ay sasiino Soomaaliland ha noolaato marka in loo soo dhawaysto inta $3 milyan oo lacagtii laga ururiyay dadka shacabka ah iyo dadkii lacagii dibadaha laga ururiyay inuu ku yimaado halkan ma hawlaal isku bixiyo iyadoo dadka awaaraha jira dhibaatada jira dadkan uu leeyahay dawlad baan u ahay kaajo u baqtiyaan marka ninkan maxkamad la saaro jeel buu xaq u leeyahay xaq ma laha inuu Mareykan yimaado raaxaysan madaxweynaha dimuqraadiga ma aha oo dadkii soo qabteen dadka uu sheeganaya inuu ka mid baan ahay dhulka uu sheegayo nin ka yimid baan ahay cidina kama codeen meeshan ka yimid marka dimuqraadiyaddu ma aha in xataa beesha uu ka soo jeeda dhaxal isku raacsanayn go'itaankan xataa la fikiray xaqiiqda oo danognahay meel walba joogaan laakiin dee in lala kaco muxuu ahaa xiisad yar lala kaco la yidhaahdo 98 baa codeeyey ee qof waliba ogi inay been tahay taas 98 baa sheegaysaa konton ma codeyn xataa beesha uu ka soo jeedaan wada codeyn oo aanay ka jirin marka waxa weeyaan waa riwaayad dadka loo sheego ورحمة الله وبركاته مغعينا اسماعيل عبد الإسلام waxaan ka yimi Ohio waxaan halkan u yimid soo dhaweeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sababtaas aan halkan u nimid sidaasaan u joognaa waxaan leeyahay ha noolaato Soomaaliland ha noolaato maalin weyn maalin muhiim ah waa maalin qaran waddankii sanadada saasay mudaharaadeen maalin qurada shaqada iyo geedi socodka nololeed ama tan nabadeed ama dimuqraadiyadeed Soomaaliland waxba ka bedel